toddobada xubnood waxay u dhigmaan marka ay isku duubayeen golaha wasiirada kale xeerku soo dhigay qofna waxay u dhigmaan xil wasiir dhowr sanoonta wasiirku leeyahay ayay leeyihiin toddobada xubnood marka waxa weeyaan cidda marka digreetada ugu dambaysa magacaabaysa soo saarayso waa madaxweynaha marka resign gareeyo qofku uu ka tagana madaxweynuhu horta xaq uma lahayn isagu toos u soo xulo kulligood inuu eriyana xaq uma leh laakiin labadaba dariiqo kale ayuu waajibkiisa kaga gudan karaa markii qalad kumishinku sameeyo guddi buu magacaabaa way baadhaan markay baadhaan wixii qalad ku xigay wuxuu odhanayaa tallaabadaasaan doonin laga qaaday baarlamaan oo ansixiya baarlamaanka madaxweynaha ku raacay markaas final noqonaysa hadday xubintu resign garayso resignationkeeda waxay u qodaysaa digreetada ciddii soo saarto waa madaxweynuhu qorayaa uu leeyahay xilkii komishinka aanu hayay ila meel kaloo ka saraysaa ma jirto ugu dib xisbiyeedii uguma noqonayo xisbiga markaa uma joogay qaranku u joogaa ninku waxaan kuu sheegay hadduu resign gareeyo qofku ninka ka aqbali kara haddaad meelun tiraa dee idaacadda aad ka sheegto waxa waan ka tegi ood ka tagto dee waad ka tagtay laakiin haddii loo baahdo cid tiraa waan koo celiyay ama waan ka aqbalay madaxweynuhu baa xaq leh xisbi xaq uma leh xisbi waxa weye xaq u leeyahay inuu soo bedesho xubin kala keeno waa inuu xubin kala soo xushaa keena meesha kusoo buuxsada sharciyadda waa sidaa madaxweynuhu dee hadduu ninka resignationkiisii uu ku waafaqay inuu iska tagay isna goostay xisbigu waxay xaq u leeyihiin nin kala keenaan isagoo hadalkiisii wata siyaasi cabdilaahi jawaan waxa uu sheegay in siyaasiyiinta Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku abtirsada xusbiyada dalka ka jira aanay aqoon badan u lahayn arrimaha siyaasadda isagoo fariimahooda tusaaleynana u diray sharciga rasabiisana waynu burburinayna marka runtii aan wax ka badheeno waxba kama qariyo waxba ninna ugu habran maayo ninna wax kaga dooni maayo laakiin ummad sharciga ilaalin weeyey dee waxay ali kitaab gurigiisa loo deesay xalaa baday sharciyadii marka leexdo muran iyo qayle iyo qabiil iyo qulun buu wax waliba u soo galiyay marka waxa weeyaha wanaagsan in ummaddu xeerka ay dhigatay ay ku dhaqanto haddii lagu dhaqmo xeerku qalloocay yahay way la bedelaa laakiin waa qardajeex baa loo baxaya dee waddadii waad ka baxday gaarigan haddaan haywaygu socon buurta u leexdo miyuu soconaya soo geli maayo xas iyo dhagax iyo qori siyaasaddii dadkan ku shaqada haya dad bartay inta badan maaha waa cilmi dhan oo la barto waa political science bay qayb ka tahay siyaasaddu marka waxa weeyaan nimaan arag inanka yar soo suuqa iska xil baa lagu leeyahay siyaasi baa lagu leeyahay warsi xilkan lagu dhiibay siyaasi kuma noqonayso you have to study waa inaad barataa jaamacadaha looga soo baxaa kollejada looga baxaa seminaaraha la qaataa markaasuu qofkii bislaanaya wixii fahmaya laakiin imika haddii xil loo markaas soo gasho shaariyo loo hebel xisbigan ku jira xil baa lidhiyo siyaasi baan ma marba wasiir noqdo siyaasi baan dee ma tihid siyaasaddu waa cilmi loo barto cilmiyada ka mid oo jaamacada looga soo baxo oo practical haddaad ku soo bilo caruurnimada ku soo bilo waad fahmaysaa oo waad ku soo korto waxaad practical u hayso oo garanayso marka